هل سؤال حوير سؤال شيء هو سؤال هل كلية كوبان كوبي كوبان تاي واحد شيء أو مدرس سون نقولنا هي عقبات محجرة حولها يدكدا وضد أول حيسة مدبدا بواحد كشري عقبات سون نقولنا يسه أو حوله دبعتك قبان يدك حولها كشغية ما دبعتك قبان arrinta isku day badan oo hadda ka hor la galay baa jirtay wasaarada badan baana ku lug leh oo qayb ka ah sida xal loogu heli lahaa arrintaas xalkeedii ma la helay ma lagu jiraa maxaa ka qorshe ah arrintaas dhibaatada ka jirta jidka xoolaha oo u dhaxeeya dekada iyo maxjarada aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasaaradda kusoo dhawaada golaha wakiilada warbixintii wasiirka waxaa ka muuqatay shaqo fara badan oo wanaagsan inuu ka qabtay dalka isaga iyo wasaaradduba waxaan laakiin la yaabay wasiir si aad og tahayba gobolka Cayn iyo gobolka Sool ay ka mid yihiin gobolada ugu xoolaha badan wadankeena mar qura digaag iyo shinni qaybinaysay ama wax talaalaysay mar qura kama maqal boohooda iyo laascaanood midna iyo Sool maxaa jira oo aad wax uga qaban lahaydeen taasi waa talabaad anigu waxaan qabaa maxjarada in la regulate gareeyo oo idinku aad regulatory agency u noqotaan oo aad idinku ilaalisaan oo aad wax ka qabataan laakiin badnaantooda waxay soo kordhinaysaa tartan iyo xoolo badan inaynu dhoofino anigu ma qaba in la is hortaaga maxjarada assalaamu calaykum ka bacdi waxaan ognahay xoolaha ku nool ee wadankan waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 12 milyan taas oo macnaheedu tahay dadka reer Puntland ay ka badan yihiin xoolaha ay haystaan waa isha kaliya ee dhaqaale aynu u dirno dibadda ama hard currency-ga lacagtaada ee naga soo gasho xoolaha macnaheedu ma aha inaan ka sheekeynayo ahmiyadda ay inoo leeyihiin xooluhu waxaan markii jirta aan ognahay in nidaamkii xoolo raacashada ahayd oo dadku raacatada ahaa inuu sii gabaabsiyayo oo dadka xoogga ah miyiga ay ka dhamaanayaan raacataduna ayna sii socon doonin oo ay arrintu u baahan tahay in dadka loo bedelo xoolo dhaqato macnaheedu deegaan degan oo dadku aanay gurguuraynin oo aanay ka xiisa dhacin oo ka tagaynin si loo horumariyo xoolaha haddaba su'aasha koowaad waxay tahay maxaa tallaabo ka qaadeen sida dadka loogu transform gareyn lahaa loogu bedeli lahaa inay noqdaan xoolo dhaqato oo ay ka baxaan noloshii hore oo ilaa nabi aadan ahayd iska daba joog xoolaha taas waa mid su'aasheeda labaad waxa weeyaan qofka bini'aadmiga ah wuxuu cadow u yahay wuxuusan aqoonin waxaa hadda xildhibaanku sheegay daawada marka la siiyo xoolaha muddo 7 beri ama time ay u qabataan oo daawada side effect-geeda inay ka baxdo dadkii xoolo raacatada waxay aaminsan yihiin cudurka ugu weyn oo xoolahooda ku dhacaya inuu yahay daawada laftigeeda marka phobia ayay ka qabaan iyo cuqdad daawada iyo nolosha casriga ah iyo xoolo dhaqashada marka taa waxa looga bixi lahaa wacyigelin xoog leh oo dadka la siiyo waxaan fiiriyay TV-ga Puntland oo kale social media barnaamijyo isdaba yaalo oo joogto ah oo usbuuclo ah ama wax la mid ah leh oo dadka lagula hadlayo xoolaha dhaqda ima muuqanin sidee bay tahay runtii inaad u gaartaan dadka xoolaha gacanta ku haya si ay u fahmaan inaad tihiin saaxiibka xoolo dhaqatada waad mahadsantihiin salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم حلبان أحمد حاج محمود وحنا ويديي محجرة حولها يودد udhaxaysa magaalada oo dhibaato badan lagu qabo maxaa idin ka qorshaysan wax hindisa ah oo arintaas ama ra'yi ka furan ma jira aad buu xildhibaanku mahadsan yahay waana nin xogayaal runtii wadadaas ganacsatada magaalada
waxaan leeyahay maxjarada laba safar oo aan tegay labada safarba waa ka wada hadalay wax fiican baa ka bilaaban safar waxa kale oo jira hay'ad hadda aanu MOU kala saxiixanay oo ka shaqaynaysa maxjarada iyo xuduudaha iyo mataqaanaa ilaa iyo dekada chainkaas baanu heshiis ku kala saxiixanay inay nagala shaqayso marka hay'adaas assessment bay samaynaysaa waxaan rajaynayaa bishaan hadda July bilowgeeda baa team loo dirayaa teamkaas Dar es Salaam buu ka soo bilaabaya hadii ilaahay idmo maxjarka Dar es Salaam ku yaala bay assessmentiga ka soo bilaabayaan wadadaas isku xirta Bursaalax iyo Dar es Salaam inay iyada laftigeeda oo maxjarkaas oo ah marin bay u tahay baayada laftigeeda 18 kilomitir bay rabaa inay soo qiimeeyaan waxay ka gudbayaan oo iyadana ay fiirinayaan Tuurdibi iyo wadadaas iyadoo halkan ka imaanaysa oo customkaas ka bacdi garaacad bay u gudbayaan maxjarada garaacad ku yaala iyo mataqaana kuwaas bay soo eegayaan marka dambana waxay tagayaan Boosaaso maxjarada ku yaala wadadaas qorshaha inoogu jirtaa waxyaalaha assessmentiga lagu samaynayo wayna fududahay hadii maxjarada ay qayb kamida ay ballan qaadaan oo yiraahdaan waa bixinaynaa qaybta kale diyaar bay leeyihiin haday 500 haday bixiyaan maxjaradu ama 100,000 ay bixiyaan ayaguna 100 bay bixinayaan marka waxaan rajaynayaa maxjarada iyo ganacsatada xoolaha dhoofsata laftigooda iyo hay'adaas iskaashigeeda insha Allah waxaan rajaynaynaa in wadadaas ku dhisanto hadii ilaahay idmo ahmiyad weyn been noo leedahay taas waa midaas su'aashaas kaliya buu na weydiiyay mudanahaasi aadna waa ugu mahadsan yahay mudane Shariif Cabdirasaaq Shariif wuxuu weydiiyay gobolada Sool iyo Cayn marnaba ma aydan soo hadal qaadin wax shaqaana inaad ka qabateen may kuma jirin warbixintiini waa runtiis gobolada Sool iyo Cayn 750,000 oo neef oo aan daaweynay oo xoolo jiran ahaa Cayn waa la geeyay talaalkaas iyo daaweyntaas waa la geeyay Sool la shaqaanu ka qabanay waxaanu kaloo ka qabanay hadda abuur calafka xoolaha oo 2,500 oo tan waxaanu geynay Sool meel ka mid ah Sool oo dhan ma aanan geyn Caynna ma aanan geyn laakiin Sool meel ka mid aan geynay Sool sidaad ogtihiin duruufo kale oo adag baa ka jira maamul baa meesha ka jira maamulkaasina ma ogola inay wasaaraduhu ka hawlgalaan gobolkaas laba maamul oo darisa inaan nahay bay aaminsan yihiin anaguna inaan ku xadgudubno oo halka aan dhibaato ka keenno hadda ma rabno laakiin haday mashruuci barwaaqo 12 milyan buu ahaa 1 milyan iyo bar kamida mashruuca barwaaqo lacagteedii waxa loo jaray Sool iyo Cayn baa loo jaray milyan iyo bar Soomaaliland baa laga soo jaray 3 milyan waxa loogu daray inay ka shaqeyso Sool iyo Cayn lacagta gaarka ah oo labada dhanba laga jaray waa loo qoondeeyay laakiin inay gaartay iyo in kala ma hubo waa mahadsantahay xildhibaan Shariif lacagtaas marka la qoondeeyay Soomaaliland ma hayn Puntland ma hayn bangiga taale adduunka laakiin qoonday ahayd marka qoondadoodii bangiga loogu reebay labada meeloodba bangiga iyagu ay kala xiriirayaan iyo hay'adii fulinaysay mashruuc kale waxa jiray mashaariicdiisa markii hore xagga Puntland laga gudbiyay oo Briefon la yiraahdo oo Safe Children ay waday mashaariicdaas waa hadeer waxay marayaan iyagii ku Puntland isku meel bay marayaan Safe baana si dhexdhexaadnimo u fulinaysa anaga xogaa dib baan uga istaagnay waxa laga qabanayaa meesha la yiraahdo Taleex iyo meesha la yiraahdo Laascaanood iyo Buuhoodle saddexdaba hay'adda Safe baana hirgelinaysa mashruucaas markii wuxuu la socday mashaariicda Puntland laakiin marka hadda uu maamulkan iyo hawshan ay timid
waxa ay hay'addu ku talisay inaan gadaal uga istaagno si dadku wax ugu qabsoomaan inaan muran gelin anagu diidanay wadaan ku adkaysano qoladaas khaatuwana ku adkaysato in dadkii wax waayaan baanu ka baqnay marka waa ka istaagnaa anagu laakiin mashaariicda waa fulaysaa hadii la haydmo xildhibaan Jamaal wuxuuna weydiiyay xoolaha Puntland waxa lagu qiyaasaa 12 milyan inay yihiin annaga wasaarad ahaan waxa noo diiwaan gashan xoolaha Soomaaliya inay yihiin 59 milyan 56 milyan 22 milyan oo ka midana inay reer Puntland ay ku nool yihiin xoolahaas baa noo diiwaan gashan si kastaba ha noqoto xoolo dhaqatadu dadku xoolo raacata weeye marka xoolaha sidee loo dejin karaa oo looga dhigi karaa xoolo dhaqato dadka inay dhaqdaan arintaasi research baa hadda aanu insha Allah taala qorshahan ugu jirtay inaanu ka bilowno sidii xoolo dhaqatada looga guuri lahaa oo loo noqon lahaa xoolo dhaqato xoolo raacatadii inta laga guuro xoolo dhaqato loo noqon lahaa research baan arintaas ka samaynaynaa research kaas wax ka soo baxana insha Allah taala waan idin la wadaagaynaa kal fadhiyada dambe laakiin arin sahlan ma aha waa arin miisaaniyad badan u baahan waana arin u baahan dadku waa hubaysan yahay deegaamadii waa kala sheeganayaa dhulkii isagoo inaga badan buusan hadda inagu filayn sida mataqaana dadku u dhaqmayaan markaad aragto laakiin research kaas baan kaga jawaabi doonaa hadii la haydmo dadku cuqdad bay ka qabaan daawooyinta xoolaha xoolaha laftigoodii bay daawadii u diiday waa runtiis xildhibaan Jamaal arinta aad buu ugu maadsan yahay waana nin xogagaal ah dadku qaar badan oo kamida daawadii bay xoolaha u diidayaan talaalkii bay u diidayaan waa ka cararayaan waa markay u tagaan taqaatiirtu waxay sameeyaan war neef baan idin qalanay iska joogo oo subaxii iska tagaya waxba noo daaweynine iska taga marka adigu hadda wacyigelin badan baanu wadnaa la socota wacyigelintana waa runtiis oo TV-ga iyo idaacadaha iyo barnaamijyo kama samayno laakiin hadda qorshaha waxa noogu jira inaanu TV-ga ku yeelano waqti cayiman oo barnaamijka horumarinta xoolaha laga soo daayo caafimaadkooda dhaqashadooda iyo daaweynta iyo waxyeeladaha ku imaan kara waxaan rabnaa si joogto ah inaan uga soo dayno idaacadaha iyo TV-ga laakiin markaanu campaign samaynayno kaliya baan awal soo dayn jiray radio Daljir iyo mataqaana golis oo fariimaan ka diro iyo baanfaleedyo aan samayno iyo sidaas aanu samayn jiray laakiin hadda inaanu ka ballaarino baan rabnaa laakiin mid kalena mudanayaal waan idin sheegayaa xoolaha daaweyntoodii sanadka ka dambeeya way sii yaraanayaan sanad ka dambeeya way sii yaraanayaan hay'adii wax ku bixin jiray way sii yaraanayaan wax ku bixintoodii ku talagal iyo qorshe inagu dawladeed oo aan leenahayna ma jiro dadka shacabka ay daawooyinka ay keensadaan daawo tayo leh ma aha waa daawooyin aan tayo lahayn oo intooda badan laga yaabo inta meel kulul la geliyo inayba waqtiga iyagoo aan expire date-ki gaarin bayba dhacayaan sababtoo daawada temperature loogu talagalay baa jira marka xoolaheena daaweyntoodu khatar weyn bay leedahay laakiin qorshe inooga baahan tahay iyo ku talagal inaan inagu isku talagalno wixii kale inoo imaanay oo meeshii aad baa u mahadsantihiin